galabta intii gelikii dambe xalay magaalada Washington dhaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh markii uu hadlay saddex qodob Somaliland gaar buu la hadlay Somaliland wuxuu yiri marka koobaad Somaliland waxa uu sheegay inaanaan ogolaan doonina Somaliland madax bannaan oo goonisu taagta bareed waa dhageysan doontaa wuxuu yiri xataa ilaa 19 ereyga war hal israaciya bid laga maarmooyay ma ogolin oo waa ka dagaal galeynaa wax kastoo soo dhaweynaya Somaliland inay xor noqoto goon istaagto waanu ka dagaalamayna aqbali mayno kala go xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu inay qaybin maayaan wax ka badan bay wadaagnaa wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexin noloshooda ah ee ama la maal gelinayo ama baayac mushtara ama dawladdu siinayaan in aniga la isoo mariyo waanu saxayaa waan siinaya si ay isaga noolaadaan waa dhageysan doontaa qodobka koobaad ereyga Somaliland ogolaan maayo xorriyadeeda madax bannaanideeda iyo noqoshada gobonnimadeedii waxaan ka leeyahay horta soo noqoshada Somaliland gobonnimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26 Juun oo Afrika oo dhan ay kala simantay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Somaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juulaay 1960 labaduba wuxuu ahaa go'aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Somaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd cidina labada go'aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqi karaan kama qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go'aanka Somaliland sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inay joogtay bale qaranka Somaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiina aad ka wada marxaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midowgu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qarannimada gaar isula taago iyadoo la isu dhayahay taana Xasan Sheekh iyo xamar ni jooga iyo mid Islaanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahayn hadalka aad tiri cadaawada uu kordhinaya aqli xumana way tahay 30 sano kala maqnaynay waxa ka wanaagsanaa inaad tiraahdo ku leenahay laba dawladood oo jaar oo walaalo Soomaaliya ma ahana haddii ku deeqayso weeye adiga oranaysa qodobka uu yiri xadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyaan in kala soocimaaya oo in kala gooymayo wax weyn naga dhaxay waxaan kale ama aynu kaleenahay horta xadkii isticmaalku waa kay ku dhisan tahay Afrika 4 iyo 50 dawladood Soomaaliland waa 5 min diida iyo rtiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka Xasan Sheekh iyo madaxweynaha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xiligeedu inay Afrika ku dhisnaato xuduudaha isticmaalka waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato oo ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Somaliland ku kala raaci maayaan xadkii Talyaaniga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeskaga bax Afrika midowga Afrika waadu mid gaar samayso wax taaro ma doonayo xuduudihiisa Afrika laakiin Somaliland ma oran kartid kuma qaybsan karo waa sharci Afrika oo dhan buu yaalaa midowga Afrika ka mid yahay ku weydiin mayno xorriyaddeedu waxay ku soo Afrika dawladda Afrikaayiin ka shariyo kontraad baan nin diidinaan silsilada qodobka saddexaad wuxuu yiri waxaan ogolahay in iska ceeshaa wixii horumarinaa siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waa la saxayaa haday horumar doonayaan
waanu saxiixayaa ma doonayna inaanu culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaala siyaasadeed diblomaasiyadda xorriyadeed waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka afrikaanka ah ee afrika soo urursay ee lagu siiyo waxaan la yaabanahay inaad faantood tiraahdo Soomaaliland xornimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha iyo macaamiisha taa waanu ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo iska ceeshe waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu hore uma mahmaday waxay tiri Soomaalidu waxay tiraahdaa gob xurma deeqda guna gasiin iyo goos qabatin baa deeqa waxay la tahay xasan sheekh Soomaaliland deeqan markuu leeyahay iska noolaadan labada eray wuxuu quurayaa kadama Soomaaliland Soomaalidu way istaqaana adiga shakhsiyan ku sheegaya Soomaaliland soo baro Soomaaliland waa gob xurma deeqda ee calooshu ma deeqda waxay galayaan iyo goos gudi haddii xornimo iyo ixtiraam iyo qarannimo laga waayana nin waliba wuxuu yahay in buu noqon waxaan ku soo koobayaa habeenkii 26 Juun markii Hargeysa xafladii la joogay arrintaa waan ka hadlay wuuna soo hambaliyay waxa loo dareemayay inuu si maaragtay nin af wanaagsan waa kan aad arko macaaneeye saaxiibo badan oo ku leeyahay Soomaaliland qaar baa mashtarkiisa ka socda iskuulada leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaan bareysay anigu habeenka waxaan idhi waar libaaxa ka qaylaya ka soociya iyo ka amsan badana waxa soo baxday xasan sheekh wuxuu la aamusaa inuu shalay ka sheegay Farjiria isagoo la hadlaya qurba joogii Soomaaliya waxaan ku talinayaa laba dawladood oo 30 sano kala madax banaan xoreen اعتراف إلهي ولا اعتراف أنا واسع اعتراف سنة بني آدم كنا وحنا وجبهنا يربى صدوا سنة وكلام مغنى لبي يصدوا سنة صدوا سنة شب إيه عراد إيه إلا الدنيا بتشوفني صدوا سنة كل حرة هديك دقيق ويدي أنا وقرن ما يوحى كدقيق يك احترامية لكن الشعب كالصومالي وحلاه أنا وحنا عندنا الصومال لندهاي ولا ليا كلا قوسنا ينقوم ما أنا لما دولة ولا لا إنه هذين واحترينه هذين إسكاشرينه لكن وها حسن كسويري مراها شعبي الصومالي الله ما سعودان سلايه وحي وحقردي أنت سوى يدور يوحي عنك أولا لها أو سلايه هاي برعاء أولا وأصلا Soomaaliland يا أنت وياشو بدنا وحي كدورنا ويشوجان فقرك وين كولا لها ما تشرو هذه أدوم هتنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته